الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق. في صحبة القرآن خير نحياه كي نحيا بخير ولنا من الأسماء خير وعلى المسمى نلتقي. نور نرى بسنائه نبع نغاث بمائه ونفيد من أفيائه نمضي بدرب شيق. خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق. زرع يسر القاطف يتلى ويبقى وارفا لنرى القلوب مصاحفا تروي الحياة وترتقي. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد وورين الله سبحانه وتعالى ما تذكره الله نذكرك كان هلكم بركيسان الله سيا متيسي ومر بين الأم هذه والرادي قريو انت كدب وحام هاتسان معلمين تي يأردي دي نص دياري بندقن قرحة بدن sidoo kale waxaa mahad gaar u celinayaa waalidiinta iyo marti sharafta ayaan mahad gaar u celinayaa dhammaantood mahadsan yihiin. waxaan leenahay si farxad ah iyo qalbi furan ku soo dhawaada madrasada daarul ikhlaas tahfiid alquraan alkariim wa tarbiyat alislaamiyya. maanta ay tahay maalin isniin ah taariikhda islaamka ku beegan tahay 19 bisha ramadaan 1444. waxaa farxad weyn u ah markaasuu daarul ikhlaas tahfiid alquraan alkariim inay soo bandhigto xafladda sanadlaha ahayd oo ardayda quraanka soo baratay lagu maamuusay oo loo qabanayay. aad ayaan iyaga u go'aadinayna oo leenahay waad ku mahadsantihiin sida waana quraanka soo diyaariseen. xafladeena maanta waxay ka koobnaan doontaa dhowr qodob waxaana ugu horeeyay quraanka kariimka iyo bandhiga ardayda soo bandhigi doonaan kelimad aan siin doono waalidiinta sidoo kale kelimad aan siin doono marti sharafta. xafladeena maanta waxaan ku furnaynaa waxa lagu furto waxa uu wanaagsan u yahay quraanka Allah subhanahu wa ta'ala kitaabullah. waxaana ku sugannahay meeshiisa waxaan u yeeray ardayga ugu horeeya quraanka noo furayo Cabdi Khaliq asoo mahadsan soo dhaxsado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي على مرت شرف طماش أي مهته واني مهد علينا دمانتين ساني ويرنا نوغو أجيبتين واد مهد سنتين مد الله الحمد لله إلهي بام هذا إسكاله إلهي جنس وجارسية بشرب الله نورت أولا وعاقرا إلهي باكم مهد سن ومضوا عليه الناس وجارنا هذا إلهي قاتل قبر آذين. الحمد لله هرت إلهي جنس وجارسية الحمد لله مد الله يسوع xalfadan aad baa ugu faraxsanahay waana afka waalidka ku hadlayo oo dugsigana ardayka ah ilmaana ma taqalin jabinahay baraanka leeyahay. alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh. walaalayaal waa mahadsantihiin marti sharafta meesha ay maatay dhammaan sheekh maxamuud cabdi dhaqan waan ku salaamay walaalkay saad noogu yeeranay noo soo ajiibtay macallinkana jazaakumullah khayr. anigu hadda soo barbaarayo ilaahay miisaankiisa xasanaadkiisa Allah u qabo dugsigana Allah noo barakeeyo insha Allah. هذا الوين مسيقي حلفة آد بهم فرحسنا آد بهم سودوينينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله آد بهم حسنت ميمونة أيضا كهل ليسوا أفكا والدين تأهد حجاران حاجة دمركا هات أنا وحن آذي كلمة إسكلين مرت الشرف تا وحان مكرفوك كل سودوينيا عمر عبد الله وأنا يلا دعوة كودا حافظها جارهان bahashaal dhalinyarada is aruusatay inay dacwada ka shaqeysay uu yahay ku-xigeenka jagooyin ugu badan buu ka hayaa. marka Camir Cabdulle ayaan ku wareejinayaa mikrofoonkaas oo kelimadiisa soo ka hadlay afka dhalinyarada u hadlo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهرين وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى وما أنت نوسور تجلي حفلة قروح دبضن ولو ما موسى كلام كيسة إن أن كسوق يبقلنا ما لقول نجادو أما لقول نصتو أما لقول فرحه ومش أقومهم سنة أو من نيت ما دام يتهي بش قرآنك بش رمضان تنلويتو وحنقات وفرح سنة إيمانتا بندق أرضا يسوع بندقين محلينا ما شاء الله aad baad u soo dadaasheen dadaalkan waxaan igala rabaa inaad sii laba jibaartaan midda saddexdiiso waxaan u mahad celinayaa macalinka iyo kooxdiisa iyo macallimiinta kale oo soo diyaariyeen ardada maanta ka takhrujayso meeshaan runtii dadaal badan baa la soo geliyey say iga muuqato oo ujeedaan maanta indihiina macallinnii ah waxay maanta soo bandhigeen ardadan aad iyo aad buu macallinka u mahadsan yahay anigoo waqtiga ilaalinayo waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan leeyahay macallinka هل قد قالوا أرنتيسا سجوني هلو فيريو جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله عامر عبد الله أدبو مهسين هاي كلمة واتكم هسنت هاي كلمة أنا وشرفتي الله سبحانه وتعالى أجر نسوكوي كرنا كاب المريو ونانتي ملبرن بوتابتي قارهان والدك وإن حاليش المعلن كعرضتها لو دعيو هل مرنا ظلمي والد معلنك دعاء ودعي لا أقبله marka had qismada soo qaatay waxaan filayaa inaad fiican dhageysanayseen inaad ka faa'iideysteen farqa u dhaxeeya labada waalid iyo ilmihiisa meesha u dambeeyeen hawaarkii maanta macalinka waalidku gacan qaaday baa cunuga raacadii laha doon way saaranta ilaa qiyaamana way la soconaysaa sidaa ogeey marka caruurta macallimiinta lagu duceeyo intaas kelmadaas ugu mahadsan yahay Aamir waxa sidoo kale maanta martin noo ah Ahmed Nuur oo ahaa musharax MCA waa bari sanadkii la soo dhaafay marka martuuno yahay wuxuu jeclaystay kelimo yar oo soo gudbisiyo asaga mikrofon ku soo dhaweynaya soo mahadsan soo dhawaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يا مهد اسكره halkan ugu soo keenay meeshan aan hadda iskugu imaanana meel ka sharaf badan ma jirto waayo quraanka ilaahay yaa lagu aqrinayaa meel aan iskugu imaanana waa meesha ugu sharaf badan ninkaan imaanina halkan asaga qasaaro usuganta waayo quraanka ilaahay yaa lagu daadiinayaa lagu akhrinayaa dhalinyarada ay ku akhrinayaan qara laha siiyo marka aan waxaan dhihi lahaa anoo soo gaabinayo horta sheekha aad buu u mahadsan yahay waayo maanta quraankan ilmahan akhrinayaan ciyaar ma oho sheekha juhdi badan buu geliyey waqtigiisu u huray aad buuna ilmaha ugu dadaalay marka ilmahayna hadday rabaan inaan u toosno ilmaha hadday rabaan inay noo toosaan waan inaan sheekha u dhugunnugnaalnaa oo aan si fiican aan u dhegaysanaa sheekha aad buu ugu mahadsan yahay arrintan oo maanta halkan ka socotana arrin yar ma oho waayo qur-aanka ilaahay baa lagu akhrinayaa ma arrintaas arrin yar ma oho waad mahadsan tahay sheekh ilmahayna quraanka noo bartay qeyr allah ku siiyo anagana madaxaad noo saarantay teeda kale waxaan dhihi horta iga raalli ahaada waan soo daahay walaalkay maxamed guuliyaa ii sheegay xaloo ii sheegay waan soo daahay iga raalli ahaada taas raalligelin baan ka bixinaya teeda kale arrintas maanta beri waxaa jirtaa siyaasad aheedoo kuura iyo wax la raadinayo dugsiga la daba ordaay oo dugsi walba meel walba laga xiraayo oo nin walba uu tagay hadda kuura ma jiro kuura hadduusan jirin marka siyaasiyiinta wax imaanaya ma jiro marka waxay ku tusini inay kuura bas ay raadinayeen kuura hadday helaanna ee dadka waxay u qabanayeen ana meel fogaan ka imaaday iska degaan degane intaasoo masaafaan usoo maray halkan walaalkay guulay qaar laa sheegay uu ii sheegay xalay marka waxaana dhihi lahaa ilmahayna aan ku dadaalno sheeqana madaxa noo saaran aan u duceyno sheeqa ilmahayna qur-aanka noo baray ciyaarno oo arrintaas waalidow sheeqaas haloo duceeyo wuxuu rabana hala siiyo hana garab istaago garab ha loo noqdo walaadkii hadda arrin aan caadi ahayn buu sheegay oo qiso dhacduu sheegay oo dhaba marka qisadaas aan ku tusaale qaadano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ما شاء الله أدو ما سنت هاي أحمد نور كلمة عن وش شرفتي أدي أدبان كام هذا علينا وليه هنقول أحكي لك كلموين كيس كلين مرتدى وحنسوا دوين يا شيخ فيصل محمد صور عليها أصور مرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على من حمل رسالة الإسلام وأخرج بها من الظلمات إلى النور. أما بعد ولا ليال دمان وحن سلام يا والدين تا متخرجين تا مرتي شرفتا وين يا هاي المعلم كاينا يا شيخ كاينا شيخ محمود عبد الغني لما أنت واني سلامة سلامة الإسلام كان يقول سلامي سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب وحيس لي هاي وحائيها بونين إن أنا ما أركت معلم كيجا يشيقيجا أو سيرونتي maalintaan aragna usoo aqrinay maanta dacwada maaragtay dacwo la ku jiro annagana runtii waxna soo baray inaan ka hor hadlo oo hadalka aan ka hor qaato wax yar inay maaragtay waan ka xishoonaya si runtii marka laakiin kalimadda haddii la siiyey waan qaadanaya macalinkana waxaan leeyahay iga raali noqo macalimow. midda kale sheekh maxamuud jazaahullahu khayran waxaan u malaynahay macallin meeshan joogo gaaris wax dacwo wado malaha meel kasta ilaa waxaa weeye asaga macallin soo ahay wey. ilaahay waxaan leeyahay ilaahay waa cimrigaada noo dheere cimrigaadana ilaahay uu naafic uu noqdee lianna dadka adi wax soo bartay ama meel kasta markas kasta maanta uu tegaysaa wey. jazaaka allahu khayran. intaas markaa intaa ku dhaafo waxaan rabaa iga hore inaan isku baraarujinno waxaa ugu muhiimsan oo meel markii laiskugu imaado laisku baraarujiyo oo taqwa allahi caza wajal inaan isku baraarujinno. taqwada allah subxaanahu watacaala ayaa maaragtay naftayda iyo naftiina u dardaarmaya lianna taqwadaas waxaa weeye waxa midda koowaad waxaa weeye waxa ku anfacayo maanta adduunka iyo berri aakhara waxa ku anfacayo waa taqwada allah subxaanahu watacaala. midda kale waxaa weeye sahay la qaato waxaa ugu qayr badan oo allah subxaanahu watacaala qur-aanka uu noogu sheegay وليه وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحلسها يقاتوا وقرب أن تقوى الله سبحانه وتعالى. مركا ولا ليال تقوى هي إمارة وإن أمارة النغلة لا في السر والعلن سن وغطو يسقر صنبا. انت تقوى مركا وبه لأن التقوى ومارة موضوع دير وماشا الأمر من كره وهكذا مارة ولا ليال الله سبحانه وتعالى يا مهدسن الله maartay noo nimceeyo maanta maartay bisha ramadaan na soo gaarsiiye sidii maartay walaashay u reesay maartay waalidiinta kamid ah ka dhawaajisay allahaas ayaa mahad iska leh xoog iyo agood iyo karaan anaga leenahay kuma maartay kuma soo gaarin caafimaadka ilaahayna siiye oo maanta maartay soonka uu marayo 19 allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan waa inaan ku mahadinaa nicmadana maartay walaalayaal ما دائما سوى إلا وحي كدائم تمارتي شكرا هي كدائم تاوي نمعها سيدة الله سبحانه وتعالى نقوم الناستي ودد فربضا ما انت جعلين رمضان سو قارن مسدد مارتي نلصو ممارتي وقتين سو قارن مسد ما يسنين تاس وحاوي ونمع الله سبحانه وتعالى حقي سكاهة وما بكم من نعمة فمن الله وحاوي نمعك استا وما انت دوشاين آهات وحاوي حق الله سبحانه وتعالى يا كاهاتوي انت ورا ليال مركاد او وبخو waxaan soo gelayaa maaragtay maanta anoo inaan ku sii dheeraado wax yar ayaan ka hadlayaa mid waxaan la hadlayaa maaragtay waalidiinta midna waa mahadnaqo maaragtay macallimiinta maaragtay ilmahan soo tarbiyeysay oo maaragtay ay ku saabsan tahay midna waxay ku saabsan tahay mutaqarrijiinta wey midda igu dambeysana waxa weeye insha Allah dugsiga iyo maaragtay waxaan ku waaya maaragtay aan ka hadlayaa wey insha Allah midda u hore walaalayaal waalidiinta waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran sidaa u soo dadaasheen sidaa ilmahan aan aragnay maanta waxa lagu shubay iyo waxay maartay la soo bare lianna meesha waalid haduu jirin ilmahan waxa ma barteen wey waalidiintaas waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran abaalkiina ilaahay maartay ilaahay ani abaal gudo wey waxa kale maartay walaalayaal
ilmo maaragtay lagu dadaalin waxaa weye lagama miro dhalin karo wey macallimiinta waxaa weye waalidiinta iyo macallimiinta hadday isku xiran yihiin waxaa weye ilmahaas waa miro dhalayan meeshii maaragtay yoolkii maaragtay loo higsanayna way gaarayaan wey laakiin haddii ma aragtay waalidiintii iyo macallimiintii hadday isku xirnaan waxaa weye meeshii la rabi lama gaaraya ilmihiina sidii la rabi ma noqonayaan wey meeshan waxaan arkayaa oo ay iga muuqataa maanta in maaragtay meeshan waalidiin iyo maaragtay iyo isku xiran iyo macallimiin inay jireen ilmaha ayaa maaragtay shaahid noo awa ilmaha waxaan aragnay maanta horta inaan lagu soo bandhigay waxaa maaragtay wax la koobi karo maaha sida runtii aniga waan ku farxay ilmaha leanna ninka maaragtay ilmaha wax akrinaayo aqaano mase fahmaayo sidii runtii waxaa weeye maaragtay waa maaragtay farax maaragtay uu farxaya aad uu farxaya wey ilmahan sida mutunta ay u xifdiyeen waalidka waxaa weeye markii uu ilmaha uu keenayo qur-aan in la baro uu u keeno wey qur-aanka ii bar ayaa maaragtay macalinka ugu keentay maantana waxaan arkaya ilmaha wax ka maqanba ma laha kitaab oo dhan ba waa maaragtay oo weliba macalinka sheekha ilaahay qaransiiye maaragtay la soo gagaabinayo ilmaha hadda haddii lilahay maanta kitaabka dhammeey way dhammayn lahayn wey jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay waalidiinay waa dadaasheen dadaala oo dadaalkaas sii wada dugsigana maaragtay wuu miro dhalayaa lianna jiilkan arkaysaan waa dadka berri maaragtay bedelaya wey dadkan maanta diinta dacwada ahaayo dadka bedelaya waa dadka wey maanta jiilkan hadda socda wey marka habar kasta iyo aabba kasta waxaan ku waaninayaa in maaragtay ilmahaas ayaga inaa maaragtay wixii lagu shuba laga shubin wey ilmaha maanta waxaa la xifdi siiye haddii maaragtay waalidka uu fiiro dheer u yeelan waayo waxaa weeye fitnada iyo balaayada badan maanta waxa socda waa ogtihiin cunuga maaragtay haddii maanta gacantaada oo aad ku ilaalin wayso waxaa weeye wuxuu ku sugan yahay ma ogaan kartid wey marka waxaan leeyahay waalidiinay waa mahadsantihiin saa carruurtaas aa ugu dadaasheen waxaan gelayaa macallimiinay waxaan leeyahay juhdi iyo dadaal waa samayseen oo waan aragnay maanta waalidiintana maanta hortooda markhaati ay ka yihiin waxaad maaragtay sanadkan aad soo qabateen annagana maaragtay marti aan nahay meesha marti ku nahayna waan aragnay ilmaha maaragtay inay ilmo dhisanaa yihiin waxaad soo barteen qur-aan iyo maaragtay iyo axaadiis iyo mutuun iyo waxoo dhanba diinta oo dhanba inaad maaragtay ku soo dadaasheen oo maaragtay waqti badan iyo juhdi badan aad ku bixiseen waxaan leenahay abaalkiina ilaahay aa gudi karaa insha allahu alla subxaanahu watacaala agtiisa waxaan iga rajaynaynaa khayr fara badan haddana waxaan leelahay markaska meeshan maaragtay waa inaad kasii durjisaan oo ilmahan taabka dambe insha allah xafladeeda kale inaan insha allahu meeshan markaa imaanayo ilmo kasii dhisan inaan maaragtay meeshan ugu imaano oo maaragtay aad sii dadaashaan oo meesha maaragtay aad xoojisaan oo maaragtay meesha haddii maaragtay waxbarasho taya leh ay yeelato waxaa weye meesha waxaa weye waa dadka magaceeda ayaa baxaya wey meel kastaa looga imaanaya wey hadda meeshan waxaan leeyahay aniga waxaa weye meelo fara badan iyo xaflado fara badan aan ka qayb galay sidii runtii ilmahan waa ilmo dhisan wey anoo maaragtay ammaanaynin laakiin waxaan leeyahay waxa meeshan aan arkaayo waa ilmo aad iyo aad u dhisan oo lagu dadaalo maaragtay waqti lagu bixiye oo leeyahay waalidiinta ilmaha dhaleen inay macallimiinta maaragtay ay jazaakum allahu khayran ay dhahaan lianna waxaa weeye qofka hadduu maaragtay waa axsaan uu ku sameeyo waxaa weeye inaa maaragtay aad tiraahdo thank you mase mar jazaaka allahu khayran aad tiraahdo wey intaas markaan uga baxo waxaa kaloo aan gelaya maaragtay mutaqarijiinta ilmaha ardayda ah jazaakum allahu khayran qaybqasan ilahay ajir ha ka siiyo annaguna ilahay ajir ha naga siiyo jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum aad buu mahadsan yahay ka wuxuu ahaa sheekh faysal oo ka mid ahaa marti sharafta ku casuuman xafladeena daarul ikhlaas litaxfiid alqur'aan alkariim lagu maamuusay arday qur-aan ka dhamaysay iyo arday baratay farbarka iyo khadka iyo sida qur-aanka loo akhriyo madax meel ka sar la taabanaya ma laha daa'imkana abuuray dadka moorasimin culimada dadka ka sarreysa hadda qofka ugu dambeeya nii reebayay gadaal u dhigayay wuxuu ahaa sheekha meesha ku casuuman sheekh maxamuud cabdi dhaqane ayaa hadda mikrofoonka ugu dambeeya ayaan dhiibaynaa kadibna mudiirkan ku wareejinayaa sidii imtixaankii iyo jawaa-ista ilmaha u guddoonsiiyo imtixaanku ka soo qaaday markaa sheekha soo mahadsan ayaanu yaryahay inuu halkan yimaado kelmada aan ka sugayn noo soo gudbisiiyo maxaa yeelay ummaddu meel isku imaatay wacdi bay u baahan tahay culimadana wacdiga ayay diyaar lihiin mar walba ay taagan yihiin marka alla subxaanahu watacaala nadhiga kuwa qaatay oona fahmay insha allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدرك كو إن شاء الله مع رمضان جوناي رمضان كان بروح يرسك براروجينو sababtoo waa muddo yar oo kooban oo hadda aan ku dhex jirno birina iska dhammaan doonto. walaalayaal, ramadaan wuu ka duwan yahay bilaha kale ogaada. cibaadooyinka la samaynayana soomkaa u dhib badan. intan kale wax jirkaada haraad iyo oon u geysanayo ma jiro. xadka waxaa la arkaa inay gaadiid iska fuusho, baadi biyahaan aada cabto, zakada xoolo unbaad bixini, salaadana waa tukashadeeda waa iska muddo yar iyadana, masjid iska qabo oo la arkaa inuu iska ahaado. laakiin ramadaanka waa imtixaan. sababtaa darteedu qur-aanku wuxuu dhahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. ramadaan ummadahoo dhan waa lagu faral yeele, laakiin waxyaalaha kale waa ku kala gegedisneen. laakiin ramadaan waa ka midaysanna laga bilaabo duluucu alfajri waa timu siyaama ila leyli inta laga gaaro. saa darteed inuu maarad aada imtixaan u yaho yaa dareemi. dad badan way dadaalayeen oo ramadaanka si loogu talagale ay u soomayaan maalinka oo soonka haddana wuxuu sii baahan yahay ilaalis kale, xanta in la daayo, wixii dembi oo la samayn jiray in la daayo. ilaahay wax kama qarsoonee oo ramadaanka naftiisa aan la burinin. wuu bura ila wax burinaya jiro oo fara badan. 3 tobnaad oo bisha ay ka kooban tahana haddana waxaa noola kala sheegay 10 walba wax aada u fiican oo ilaahay uu geliyey. 10ka hore naxariista lagu helaa la dhehe. naxariis ilaahayna hadda wixii loo baahnaa wax u weyn ubu ahaa. ninkii soo dadaalay oo ilaahay naxariis la kulmiyena waa fiicanta insha allahu tacaala. qofkii taas is arkayo xoogaa uu ka gaabiye 10ka labaad dembi dhaaf ayaa la dhehe oo hadda maanta iyo berri ay ka dhiman yihiin. aana daateen dabadooda la qabtaa. haddana intaas in la dadaalo oo 10kan dembiga la isu dhaafay ummadoo dhan waa awow. qof walba oo camal fiican la imaado in loo dembi dhaafay. kurbada badan dadku waxay ku hayaan waa un dembiha sidan. qofaan qabinna ma laha. qof walba qaab unbu maarag waxa u halaynahay. 10ka usii dambe insha allah oo laba beri gadaasheed noo bilaaban doontona naartaa la iska xoreynaa la dhehe. waa tii aada usii darneed. iga 12 beri oo soo hartay ama 11 beri oo soo hartay dadaalka aan la laabno, aan laba laabno. habeenk waa qiyaam. qiyaamka haddaad maarad oo iska fahmaysantaho oo masjid tag karto oo jamaacad ka qaybgal karto oo salaatuleyl waa wax fiican. hadday kugu adkaato meeshaad joogto dhulkao dhan waa daahir, dhulkao dhanna waa masjid. ayuu daacadnimada iyo albariga meesha ku gal. salaadaha laba u tuko. marka u dambena hal u dambaysi oo witir ah. dumar haddaa yihiin gurgoodaba aa loo ogolyaba waa iska diyaar iyadana. taa ramadaan intaas ooga baxa. qodobka labaad oo insha allah khayr ka sheegay waxaa weeye dowrul mucallim. macallimkan hadda aan joogno meeshiis keli kama hadlaya ugu ana iska bilaaba ayu macallim. qof walba oo diin dad barayo. macallimiintu waa laba. mid maadiyu bara walwalaana makasay, laakiin wuxuu bara science bara, gargaajo bara, biology bara, waxyaalo kale bara. muslimka gaal wuxuu ahaadoba. tacliintaas maadige ilaahay waajib noogama dhigin. ogaada meesha hadda annaga aan u dhulno xooga aan saarayno oo xoolaha badanna aan ku bixinayno oo midda maadige ma waajiba noguma ahaba. laakiin tacliinta diiniga waa waajib. sababtoo qaal rasuulullah sal ly wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasaraanihi aw yumajisaanihi. ilmo walboo dhasho donald trump hadduu dhale, benyamin netanyahu hadduu dhale, shaydaan kale hadduu dhale, kibaki hadduu dhale, ayo canug waxaan gaalu sheegay gaal iyo islaan isku dar. ilmaha markuu dhalanaya waa muslim. fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha. canug ku dhalanaya diin kale maba jiroba. markuu dhasho waajibkii waalid lahaa meeshaa markaas soo gela. fa abawaahu labada dhashe yuhawidaanihi kuwaasaa yahuud ka dhigi,
بريامين تياه وقاد حقي مارة سبتد وجين مال يهودية برا أو يمجسانه أما يجا كديجا يندك أو كله أو رهد يدبك عابداي أو ينصرانه أما يجا كريستان كده ينو كنيسة جيناين أما مسجد كجيناين دكسي جيناين مسلم عنه نقونا مركا عنه مستقبل كيس يصور نقولها وحساب والد كبرين لوي ديناي دينتيس إن لبرو وقرآن كأوريو وتعليمتي صار الله ووضو وأنتو عنو نوقين قارن وذيك عنتا كجرو إلا هدو كاتاك توامد كلاه وواجب وقاذا لكن تعليم كلا ولقناها يمحادو جيلاس والكاف انجليسكو محلاي ما مجرو وقاذا صادر تيد قابك نطنق عن بطنه هو عكس بقى لكن لا دنكا كلا يالله جبه إن دنكاس كلا حوق لصارو دوكسيغانا قعنت بيه حتى لو قبطو أرنتا خسارة وينيكين معلنك هو حبر ووحي إلهي وذلك قول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه شقا أفي عن يخيرك أبدا قفك أمضى مها وحاوي قفك أسك قرآن برتئ معلنك أسك أهم وحقرنا يا الله وقاذا هدو قفتك السب والمعلن ما اسكت المامو مايا من تعلم القرآن أسك أول برتئ وعلمه أمضنا وصيب برئ مركا معلنka markaa waxaa laga rabaa arrinta iyada inuu sidaa u fuliyo oo asaga aqoontiisa hadday dhimantoon uu dhiso ilmahana wuxuu baraya wax saxan inuu ahaado waxaa kale oo loo baahan yahay oo macallin waajibkiisa ilmaha fard in la baro ilmaha zamankan dambe kitaabka laga baray waa khasaara way dibdhacayaan meel kaloo tacliim haddii la geeyona ilmaha qaarkooda lama qabsan karaan ogaada maclumiinay ومنمت وحلوغا بها wax qorma madrasada igla kale waxaan ku kala garan jirnay macalinka ilmihii macallin fiican dugsigiis ka imaaday ilmihii macallin maarad oo nacasa ka imaaday macallin sidan hadda u taagno oo qaadana wax buu yeelina aan walbana bugu yaqaano haas macallinkii oo ilmihii soo baray wax qorma si fiican afka markay ka sibixda mar uu qoray waa isla soconaysiin kan kale waxaad ku kasi wax buu firfiireen iska taagnaana وضو إمارة سوريني صدر كهراء ولي موضع مايين با بوغن وعلا بوغي معاه قرآن لما صوب بارين قرآن مركا واجبك المعلم بيها بس واجبك والد وواجبك المعلم بريوا ولا لوحة لقوديغان جيري halka looxa wiilkan ku baran jiray wiilka dambe ku baran jiray oo la guur jiray oo la degi jiray hadba waqtana la isticmaala inkastoo waraaqihoodan fakanayaan oo maarad jid ku dhacayaan oo nijaaso galayaan khatar badan too oo waajib walba aan walba oo waalidkiis laga rabo inuu buuga la ilaaliyo quraan lagu soo qore haddana kana lagu farbar hadii la dhahay iska haatee laakiin farbar in la sugo ilmaha ku xareysan inaad kala ogtaho anuga markii la yeeriyo si fiican u qor karo oo la ordi karo iyo anuga farbar u baahan kooxdaas farbar u baahan waa inaad si gaar ah u soo dhaweyso oo fiiriso xarafkiisa maarad ay qorayaan iyo si u jabinayeen farbarka anugan haduu iska toosiyo inta dambe uu socona waro darawalnimo la bare oo markaa furyi loo dhiibo oo dhaqaaqay qodobkan waajib macallin waajibkiisu waxa kamid ah xuduur macallin dusku inuu joogo hadduu tusaa isku dhawo madaxtu iska tegay ayu macallin ama madrasa atee ama haatee meel maca dugsiye macallin maqan hadii aa macallimadii meesha way ka bixi markan معلم وجوجو انت المجوجان السجن وحاضر يهو قيبتي مقناطه او برشا كلا اد واي مقناطه حد قيبتي صورته وحي حق ولاده ان ما لبره ولا لا جوجو او wax faa'iidaan mudada meeshan joogan ay noqoto muddo ayagana wax barashood wateen si kii kale meel kale u kaco isguulaade wax ooga wato qodobkan kale qaabkan had ilmaha loo soo joojinayo oo la soo bandhigay tadriiba la dhahaa ilmaha waxaa la barhay bari inay dad hor joogsadaan oy waaniyaan oy wacdiyaan madrasada abuura la dhihi waxaa soo joojinay ardaygan ilma hortood mid quraanka u akhrina midna khudbuu jeedin wuxuu doonoona ka hadla waa tababarid ayuu dadana haddii ma arag intii la baro dad loo joojiyo wuxuu sheegaan 20 jir iyo 30 jir markaa gaaraan
إن وحبا يعني أي كبقى ينملها لكن وحلو هذا قفكي بري هوري دورك وحكو برنجر أما بالفضي dadka hortiisa hadii la joojiyo indhuhu kasasa dadka indhaha ruuxa maaragta oo arrintaa lagu soo tababarana dadku inuu sii bato jeclaaniba markaasaa sii fahmaysanaba masjidiga khudbayn hadduu dad yar yaho qalbiga kaa dhibi laakiin hadduu dad badan yaho ama cashar akrini ila badan yaho jecesha oo dad maaragt dad badan ay fahmi hayaan waxa markaa la sheegayo saa darteed iyadana waa tababar arrintan dad la arka inay yaryaaban yihiin ilmahan maaragt yolfum loo xiraya meelaha la joojinayo waa la tababarhay ogaada arrintii haddaan soo galo waalidow canugan markaad geyni meel dugsiye waajib aad gudantaas waajibka diiniga waad sheegay aad gudantaas leana diintiisa inaad barto waajib ay kugu taba sida kuna yahuud u aadiyey sabtid kiristaankan xaw aadiyey majuuska xaw aadiyey adiga muslimkana xaggan aad soo aadisay haddaana yeelin canugan iska joogo iska fiirsato dembi weynaad gashe aakhare waa lagu haast hataa dembigu kaaniyo khaladku galo waa lagu qabsana sababtoo jidkii toosnaada maad ku toosinin marka waxaan yarood ku bixini waajibaad ku gudanhaas diintaad ku horumarinhaas waxaa la arkaa mustaqbalka wadaadka meeshan maamo walba ama oday walba inuu dareemo inuuna canugaadan yaho gabartan inay noqoto gabadha eeriyada maarad gabdhaha waa dhig doonto waa markaa yar tahona waajibka aduu ku saaran yahay waajibkaa markaa ka soo bax oo toosi insha allahu waxaa loo baahan yahay waalidow macalinkaa diinkuu dhigayo xushmo inaad u yeesho oo sida oo la dhaqmi ay noqoto si sharaf leh hataa haddii maarad ilmo wax la yeelo oo lisgafay hatoon tixgelin weesi diin darteed ku sii dadaalku bixinee ku sii waaduu imaan kart anigu xaalkiisa aad wax ka weydiin kart waa sax hadduu dhib kala qabaad sheeg kart laakiin ogaaw macalinkii iyo adi laba isku furan ahaada qalbi furanku wada shaqeeya canuganna hataa hadduu ku orto adi cilla usoo sheeg hadduu faradxumo ka orto usoo sheeg inuu ogaado alla rabilen waxaa la arka canuguna jiran yaho aad macalinkan u malaynaya inuu kibran yaho marka waxaas kulli waalidka xil ka saaran inuu soo sheego qodobka kale oo aan leeyaho waalidiintu waxaa wey in yar oo macalimiin la siinay markay bish dhammaato iska jir dadkao dhanna wax kama sinno ilmaa kuu dhiganayn waxaa la arka ayu naftaan had inaabad waxaanyin macalink ilaa wa ilaa ma dhahay oo macna maanta canugan soo gelaya ma dhahay haddii ay waalid is og yihiin kala warhayaan oo waalid og macalinkaas unu qatan yaho inuu sugahaayo og oo telefoon ka qaatay soo wacay anaga wax nala soo gaarinay hadee waan insha allah waan keenayn haddaa tiro dhag macalinku sii wadaba cashir uma baaqanay madrasada hadda waxaa la arkaa 4 bilood 3 bilood waxbaa la waayna laakiin cashir lama baajinay cashir diiniye lama baajinay ninkii dhigayo muhiimadiisa weyn waxaa weyba inuu ilaahay maarad janno ku geliyo saa darteed in dadaal laga bixiyo arrintan oo raatib yar oo mishaarka yar la qaadanayo oo canug walba wax yar laga qaaday hadda aynu hortay wala sheegay dawlad ku maqanba ma jiroba hadda dawlad islaam jir lahayd wasaaradda awqaaf jir lahayd dugsiyad inta la tirakoobo macalinka xaggu mishaarkiiska soo qaadan lahaa ilmaana anagu wax noo bar lahay tiima hayno dawladdaanaga kale oo Kenya kale aad u fiican tahay sababtoo ah diin ma fargelno hadda xafladan hadda la qaaro carab ama muslimiin meesh ma ku hasiina la dhihi lahay laakiin Kenya waxaas kama jiro qof diintiis asa xor weey ku iska meel loo garaacayna asagum baa maarad khiyaar leh ruux muslimkana dantiisa asa qabsana sharaftana amaad u fadhino diintaas aan xushmaanayno hatta hadii meesha haduu madax ma soo marto saan dhannaga ma iska socona dalkan taas ku fiican yahay waan ka mahad celinayna insha Allah taala marka khayr la dhisiyo inta imaatana kulliga anaga ajir Allah naga siiyo ilmaha quraanka Allah noo xifdiyo Allah noo wada toosiyo midadkan Allah naxariisto ramadaanka Allah naga aqbalo gifkaan geedan ilaahu kala dheere qaatumada khayr baa ku khatim madarka ilaahu ziyaadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ما شاء الله عد بما هي شيخ محمود كلمة نور شرفي عد بنا وما دعينا الله سبحانه وتعالى أجري حسناتنا سوكو بكن الله كبر مريو أنا كل قاتين أو كل من الله نقدره علم قال المشي وحاول إن أضبرت الله كو أوري شيء كلام النبي صلى الله عليه وسلم أضبرته الدين تأضبرت أنت سوى دنيا قفل المسلم واجب يكون هاي عروت صبرك كعيسنا إن أنت خوش ما يلا دنيا إن حفظنا أن صب لنا سكي جبجوي مريسا كلمة قدام بيسوحا نكون جيني ميكروفون كا ندير كمركز كده الخلاص أسيق برامج كنوسي دين دونا
inta ka dhimana saa qaadanaya ardaydii qur-aanka soo baray oo laba qaybood ahaayeen iyo abaalmarin doonaa markaa asagoo yeeraya asagoo mahadsan halkan soo istaago. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهتسكله الله هل كان خير يسنو كل مية الرمي سنة وحيابي أول سنة علماء وكسر هذا الشيء علماء مركان قباش هذا الله وحقا وحيقر نغنى إن شيخنا وين الشيخ محمود يا شيخ حمدان يا شيخ فيصل علماء كل أيوة الجوجان شيخنا الشيخ محمود يا شيخود الله ونحرسته علماء ما هو الإسلام نصبري كم تهين عقيدة نقصر لسي ومدرسهم باشل إنه أرضي يرى هاي يعني نصبرين عقيدة وقوحة وين وقفك الله قدسه ويوقفك دو توحيد كأوهجاجو عقيدي سأي هجاجتو وحكيني سأرمي سكال الدنيا أقرب إليه هجاجو ويوقفك دو إسلام كي قرنيو والنبي سقرنيو والله سبحانه وتعالى عدمدي سنة وقرنيو ومش أوين توحيدك أرضيدا وحياوة أومهم سن للدوني إنا حد يجير برنا وحويان توحيدك يا عقيدة ويوقفك عقيدة دايوه يكتب وحوال برنا وانك سنانه وهجاجي مركا علمدنا الله أجر كوذا ميزانك قيامها ودرو ميزانك كوذا قيام الله ودرو وعلمدنا وشيوخنا علمنا inaynu halkan soo gaarno ilaahay sukadiis ayaga sababna waha waayo waagan darsada aadaynay ama maraakiista dugsiyada dhiganaynay tartiib baynu wadeen tartiib heerkan aynu maanta joogno inaan cilmiga ka qayb qaadano ayaga sabab waha waayo caalimka wax ku barayo wuxuu kaaga baahan yahay had iyo jeer mahadnaq waayo xitaa culimada wejigooda inaad aragto oo aad fiiriso waxay ku keenaysaa aragtidaada inay kugu siyaado culimada wejigooda inaad dhowrto oo aad fiiriso waxay keenaysaa aragtida ilaahay inuu kugu barakeeyo oo kugu siyaadiyo halka dadka kale markaad dabagasho ayagana wax kale aad kala kulmayso marka wixii muhiim ah wanaag ahaa ama dugsiga baahidiisa waa la soo dhammaystiray laakiin maanta saad arkaysaan kuleelayaan u fadhin laanahay sababtoo meeshaba ciriirina waa dadka wakaa banaan ay fadhiyaan haddii dugsiga barxad weyn ama nafaas weyn ulaana dadka dhan kursi way heli lahaayeen ay ku fadhiistaan laakiin baadaas ilaahay baa noo baahi tiri dadka ummadina in isku kaalmeyo hadda jeer waa loo baahan yahay sheekhana sheekh Faysal wuxuu ka dhawaajiyay idinkan aad marqaati ka tiin inaan halkan faan ku xirneen haddii faan ay ku xiran yihiin in dadka ay hawada soo gaari leedo waxa qabow ay helaayeen marka haddaan ka soo laabano ramadaan insha Allah khayr badan baa inoo imaan doona dad muxsiniin oo hadda jeer u baahan in khayrka loo sheego si ay ugu dhaqaaqaan waa jiraan dad hadda dugsiga inta soo gaarsiin waa joogaan oo waalidiin iyo dad kale wax ka helnay waray u badan yihiin dad waalidiin ah iyo dad siyaasi isku dhex jir ah ayna waxna qabteen laakiin gacmahooda wada jir bay ku gooyaan in dadka ay isku kaalmeystaan wanaaga iyo khayrka hadda jeer meesha uu ku jiro in isku gargaarso waa muhiim maama halka waagi inoo bixisay oo lacag fiican inoo bixisay walow kaligeeda ahayd kaligeeda baa lacagta bixisay maamadaas ilaahay ajirkeeda ha siiyo waayo haddii halkan aan ahayn maanta oo meeshan hadda aan xaflada ku dhiganayno waxaa ciriir bay nagu noqon lahayd markay dugsiga yimaatay khayr baa la soo galay marka iyaga yimaatay khayrkana wuu soo galay way yimaatay warshaa qoraxdan aad ku dhigayso maxaa way markaa dugsiga baatig ma inoo dhisnaa markay fiirisay dumarkan ay u baahan yihiin goob ay wax ku bartaan ardayda ciriirigooda uu badan yahay kuleelka uu badan yahay iyo waxay dhad aniga wax sadaqaysani carruur baan leeyahay allah igu wanaajiyo أولاد الله يسيو وحيابي آد ولو إيوين دستو حكمتها إن إلهي أولاد سيو إلهي أولاد سيو إلهي أولاد سيو وحيابا دتك يكون فرحان ودتك دنيا دتك الحكي فرح بين إنه قفك أولاد إلهي سيو أما دت إلهي سيو قفك هالعنو لا عنو لا سد هالي قفك نحفل لنا سكبت معها قفك نحفل لنا كامل بنيهي حد يجي خيرك وبحين صوت المحدون يا إن إلهي أولاد كسي ماماس إلهي أولاد سيو المال بي أولاد ورث أولاد الله سيو أولاد الله سيو أولاد قيل سنة وبرسن إلهي وسهلو أنت أصيب وإسكو جوجل لقي واحد أكتين بشتن إيه رمضان غير كذا كتير بدني هي وحيكون سوق اللي بشي أديكون وحده هينين ما كي يصير كوسو كشبركان بكون فرمي أرزاق إلهي بملك هذا بالله عن أو بشن تن أي بركيسن أو قرآن كله سود دجي ليلة القدر أي كن جلتو وحاس وناقبن دم بداف كنارت إن لقاه حريو وحاس وناقبن التاي مركز إلهي سيتوكتو إلهي أضبيضه ونبي صلى الله عليه وسلم عليه عليه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وإلهي بريا
oo gacmaha u taaga oo hoorsada idinkoo yaqiinsan waxaad ilaahay ku baryaysaan inuu ilaahay idin siiyo way kala tahay qofka ilaahay barya laakiin mashaki ku jiro talabiyaadkeedu miyaad weyni iyo qofka ilaahay u tali dhibtay ilaahay arrinkan adigan ku dhiibtay waan ka dhaxbaxay marka waa kala ducadooda in la kala aqbal dhowdahay oo qofka ilaahay soo xiro oo ilaahay tala saato arrimaha ku adag adduun arrimaha dadku waxay ka fikiraan aad uga fikiraan adduunyada aakhirada waxay kugu saalanaan karaan inaad ducada bas ducadan waa cibaado qofka hadda jeer kaa duca badan waa uu kaa aqbal badnaanayaa waa uu kaa baraka badnaanayaa laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaad ilaahaas aad barinayso ilaahayna subxaana wa tacaala aad barinayso gacmaha kor u taagayso inaad waahsanayso oo maadcajis aad u arkayso salaad walba markaad tukato ilaahay bari waxa kugu dhugan ilaahay inuu kaa furo waayo nin walba oo dhan mashaakil baa haysta adiga dhib gooni baa ku haystaa anigana dhib gooni baa haystaa dhammaantan nin walba dhib gooni iyo murug gooni buu leeyahay cid maanta faraxsan oo arrimihiisa u dhigama nin walba meel buu ilaahay meeshaas waxa iga fur markaas dhammaantan ilaahay waxyaabo inagu xeeran dhibaatooyinka inagu wajahan si ilaahay inaga furo bil ramadaan baynu ku jirnaay ducada aynu tiro badino sadaqada aynu la baxno dadka aynu ziyaarino khayraadkan aynu iskugu gargaarno intaas waa mid kale bisha tan ee ramadaan idinka sheekeen uu idinka warramay wixii soo sheegay oo horey idin soo sheegay acmaashada sida lagu aqbalayo wixii fawaaid ay badan tahay ay wadataa dambi dhaafkii waxaan ku darayaa in leylatul qadr ay soo dhawaatay ay soo socoto waayo tobanka dambe oo nabi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi loo tilmaamay in leylatul qadr haweenyaha tirasdhaafka ay ku jirto 21 23 5 7 9 iyo sidaas kale inay ku jirto in haweenahaasi in aad ugu dadaalno waayo qayb baan usoo dhawaanaynaa hadda ramadaanka gabagabo ku socda laakiin habeenkii nabi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu tilmaamay in 83 sannadood iyo ziyaada inuu wato waa cimrigaana ma dhanno intaana waxaa laga yaabaa hadda markaan isku dardarno cidda 80 gaartay inay yar tahayba in la arko marka in cimrigaada hal habeen lagugu siiyo 83 sana waa inaan had iyo jeer ku dadaalno oo nabi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa kii la tilmaamayey in markay tobanka dambe u soo gasho idaa dakhala al-cashr shadda miizarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah nabiga hadday u soo gasho tobanka dambe guntigu dhish isaga dhigi jiray guntigu adkaysan jiray reerkiisana waa toosin jiray habeenkiisana waa uu nooleyn jiray oo muxuu ku noolayni qiyaamuleyl iyo taraawiix iyo inuu tukado uu sujuudo oo quraan badan akhriyo buu nabigu waxaasoo ajriga ku doonaya oo nabiga dembigiisa hore la dhaafay waxaasoo qeyraya wada tahay tobankan hadda inagu soo wajahaan wixii horey gaf inooga soo dhacay nin walba gafkaadi waa garan cid gafkeeda looga warramayo man male nin walba gaf gooni buu leeyahay ilaahay gafka geliya ama bini aadan gafka geliya nin walba gaf gooni isaga iyo ilaahiisa ka dhexeeya waa uu jiraa ilaahay gacmaha hoorso si ilaahay ducada kaga aqbalo bisha tan ee ramadaan kadibna barakooyin fara badan ay kugu kulmaan culimmadu waxay leeyihiin qofka xitaa in laylatul qadr la waafajiyey ama qeyrkaasi faraha badan weele waxa lagu garanayo calaamo ah in ramadaan kolkii laga gudbo xumaan baa lagu arkin qofka uu toosi safkaru masaajidka ka geli soonka sunnada buu ku dadaali khayr oo dhan buu ku dadaali maxaa u sabab ah cibaadadii soddonkii beri ahaa uu qabanayay baa ilaahay ka aqbalay marka intaasi waxba wacdeeda kuma dheeraynayo markaan insha allah ramadaanka ka soo laabno waalidiinta iyo dadka muxsiniinta ogaadeen in meeshan aan u baahana inaan weynaysano waayo dadka bannaankay fadhiyaan qoraxda bannaanka ku haysa inaga dhexdeen waa isku kululaanay oo uunka baxay gudan qoraxdan halkay leegta waad garanaysaan inaynu markaska weynaysano ardayda ayn cilmigeeda usii wanaagsanaado safiitooyin iyo faanan aan ku xiranno ummadda muslimiintan baa laga sugay cid gooniya wax loogama rabo in laysku kaashado wax yar iyo wax weyn cid wax bare ay bixin karaysaay inay wax bixiso ilaahay agtiisna ugu dhawaato waayo sadaqadu waa waxyaabaha taanagu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi u tilmaamay in xitaa qofka buka ee jiran in lagu daweeyo sadaqado oo nabi wuxuu leeyahay warkiina idinka xanuunsan ee buka war sadaqada ku daaweeya waa caafimaadi haddaad youtube-ka dib aad u gasho oo aad raadiso fadliga iyo sadaqada leeyahay aad baa loo yaabay culimadu si ay uga hadleen iyo wixii qisooyin oo cajiiba la soo wariyey aad baa loo yaabay adiga inta la yaabto baa maalinkaas ilaahay waxa gacantaada soo geliyey waa tijaabini waa waxyaalo practical loo arkay والله تدريب الليل الله أركي قفك لكم صدقة تربديو إني وحي الله سبحانه وتعالى كدوني إن بدل خير قبل بدله أنت أصلي أيانا ببحيا ومتكلة والدينتنا كلمة نوراني ومديرين والله كل لاضي والدينتنا كلمة نوراني أرضينا كلمة نوراني دتك حافظنا كلمة نوراني هرت إلهي عسيس كود دالة والديني إلهي عسيس كود دالة وايو هذا الدون إلا لغا وح أقبله ودعاء لغا أقبله والله سبحانه وتعالى هليه إنما
يتقبل الله من المتقين إليه وحق أقبله عدة عبسته حتى تربك عبسته ولا نبالغ أقبلي لكن هذا عبسنين أو مركز يدك وكان طلع يسود جنجير يسو مركز دبته وبحثنا واحد من تصميم يسدوح لك أقبله من إلهي قلبي هذا الله صعبه الله كعبسي كنت ذالا نير يمين نبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه وحياه آدم وبرنجر وحكم ذا اتق الله حيث ما كن وإلهي كعبسها إلهي كعصم ملو بعد جوتان كما كنا وقتنا كنا حرنا وقتها سعوته وقتها ديفته وقتها جاري سارته وقتها كل عطاء وقتها كل جاكم حرنا هاد يجير هريا وين إلهي هذا كعصم وامد دليرة هذا القرآن كقوانين سشالوين كوحن كبر رجينا يا أو ندير جلنا يا إن القرآن كذا سياسي كجتكين والدين تقرأ يحكولين ورنيك تكسب وضح فديا تكسب حكاد حياة ورأنا كل كذا بس حكاية وضح شيخنا الشيخ محمود واجن سوي ده سمي سوى عقلنا إلى وقت هذا كان أين جورنا دين تموسى ولا حجرة إسرائيل نصوا وحبري إلى يسوع إسرائيل نصوا وحبري إسرائيل دين تموسى كده حبين دين تمولد دوجوجا والبشر سيء وكتر نقطة مستقبل كومداسيات كل لسان لا يرون أركيسان اللي بيروست أما دراويسان ومستقبل وأمدها مستقبل كل ويان هديت الله إنه هجاجان دليل ما تقول هجاجيان لكن دليل مركات في السبقل كوا بقوليتان دبوا مركات بحضو دليل جگہ حيران دليل مقدرات كعضي إيمان دوري ودا والواحد سمحيه عنق ما دوري شل يتواصل مع فريق تواصل كوكلا القرمو يا جيا إليه وصوت وزين كرا يوهانك إليه قلبي سو بنين كرا لكن نصيب درا قف أفرطان سنة قاد عني أما مقدرات عني أما تواكوري أما زغروي وألقت إنه كساكس إليه ووصيحان ونين كرا لكن سوحان كسوودا دليل هذا ينقفكنين إنه ينقعمها كله إن عبادة يعلم يدين تمر الله ويا إنه كلهم ما تجبر أو فرط بر أو سمحر جبر إنجليز جبر لكن قاعد تملك كوكب صدين إن يدين تآت وبطان ودين تأكل دلالان مسجد قطبين إكبحيان غير كأنسي وضان وامد دليل رأس القرآن كمركات ما تشابهون كقالتان دكسيجا ولو دكسيجينا ما لهم بحيسان أو ما نكاس فسيلة يدكونسيو قرآن كان حزب كقرآن كي دب سوراج ودب أوضح waayo haddii dadka qaar wax isleeyihiin ama leeyahay qaar wax isleeyihiin haddaad shahaado qaadato waxa dhan baa dhamaysa maaha cilmiga ma dhamaanayo adigoo cilmiga dhamayn oo sida laga rabo aan noqon baa qabriga gaarto mid awaaw waayo quraanku wuu bilaaran yahay quraan 23 sanadood laga ku soo degayay baad aad rabtaa sanad ama 2 sano ku qaadato sidaasna oo dagato saas maaha quraanka maalinba markaad aayad akhriso qofka tafsiirka quraan garanayo baa garanayay aayad quraan kolkaad akhriso آيات القرآن كمان تفسير كذا فانتي بريمة كتب أقول لعبته معناه هذا وليك كفهم بعد كفهمي وإن هذا بسيكم عيا مركا كوريل باجرا وحبي يدك سدارين وربطن بنيدنا لكن وقت أوجي يدك يأكل يقرح ذا دك هذا وكل وحكسود بقبلنا يا إن هذا جير مركز كايمس كوكاشنو سيب المشنا نبلارين لهن فانا وحرلين مروحيا وحرلين ومدة مسلم كغير كجعل عبادة جعلينا غير كبرتان قرآن كبرتان قرآن كأتيجي سلام سوكو ذكريه إلى مادان أو قرآن كحد جير أيجنا يسيب برتان ومدة وحي كبر ما يسيب جرسيان انت سيانا بحيا هذا وحن سيجل يا جوائزتي